Gobolka Bariga Dhexe ayaa laga cabsi qabaa inuu ka dhaco dagaal weyne saameyn ku yeesha caalamka kadib markii ay sii siyaaday xiisadaha u dhexeeya dalalka Iiraan, Israa'iil, Lubnaan iyo wadamada reer galbeedka oo saameyn ku leh dagaalkan. Dalka Iiraan ayaa doonaya inuu ka aarsado ama ka arguto dilkii loo geystay Ismaaciil Haniyeh oo ku sugnaa dalka Iiraan. Israa'iil sidoo kale waxay sii kordhisay duqeymaha ay ka geysanayso Gaza, Lubnaan iyo meelo ka mid ah Syria oo ay ku bartilmaameedsanayso xarumaha kooxaha Iiraan ay taageerto iyo Iiraan laftigeeda. Sidoo kale waxaa guuldareystay waanwaantii iyo isku dayadii dagaalka lagu joojin lahaa oo ay waday dalalka Masar, Qatar iyo Mareykanku ay wadeen oo u dhexeeyay Israa'iil iyo ururka Xamaas. Sidoo kale Xisbullah ayaa sii kordhisay dagaalka ay ku hayso koonfurta dalka waqooyiga Israa'iil kadib markii ay sidoo kale iyaga laftigooda laga dilay sargaal sare oo ka tirsanaa ururka Xisbullah. Kooxaha Iiraan taageerto sida Xuutiyiinta iyo kooxaha Suuriya iyo Ciraaq ku sugan ayaa iyaguna duqeymo ka geysta meelo ka mid ah gobolka. Xaaladda ayaa tan iyo markii dagaalkii Gaza uu bilowday 7 Oktoobar waxay ahayd mid aan caga badan ku taagnayn. Dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ayaa galay bishii 10aad oo ay dagaalamayaan. Sidoo kale Iiraan ayaa laga cabsi qabaa iyaduna dagaal weyne inay gobolka geliso, walow Carabtu ay ka cabsi qabto dagaalkaasi in iyaga saameyn ku yeesho.